الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد waxaan ku guda jirnay buugga maadada biology-ga fasalka 12aad ee dugsiga sare Biology Secondary Form 4 waxaan ku guda jirnay cutubka oo saddexaad waa casharkiisa ugu dambeeyay ayaan maraynaa. Waxaan kusoo qaadanay cutubkani waa 3 habdhis waa skeletal system habdhiska qolfoofta oo qeybihiisa kala duwan iyo cilladihiisa waxaas oo dhan oo soo qaadanay. Habdhis kale aan kusoo qaadanay wuxuu ahaa muscular system habdhiska murqaha qeybihiisa kala duwan iyo dhibaatooyinkiisa. Waxaan kaloo soo qaadanay integumentary system habdhiska integumentary-ga. Integumentary waxaa la isku yiraahdaa skin oo maqaarkii ah, haya oo tintii ah, iyo nails iyo diyihii. Intaas waxaa la isku yiraahdaa marka integumentary. Haddana waxaanu gudgalaynaa marka integumentary qeybta waxaa waaye skin disorder oo badanaa waxaa waaye maqaarka ayaa oo dhibaato soo gaarta oo dhibaatooyin maqaarka soo gaara ayaan ka hadlaynaa haddii Ilaahay insha Allah. Intii casharka aan ku guda jirno wixii markaas oo cillada aad aragtaan la soo wadaaga. Casharadii hore waxaa cillad kusoo aragtaan la soo wadaaga insha Allah. Dhiirigelintiina waan u baahanahay insha Allah. Dhiirigelintiina sidoo kale taladiina waan u baahanahay insha Allah. Wixii talo ah oo aan horumarin u baahan haddana insha Allah waxaan gudgalaynaa casharkeena. Bismillah, waxaan ka hadlaynaa skin disorders cilladaha soo wajahaya maqaarka. Hore waxaan soo hadalnay integumentary system habdhiska integumentary-ga. Two common skin disorders laba cilladood oo caadi ku ah maqaarka ayaan baranaynaa, laakiin cillado badan ayaa maqaarka soo wajahaya. Labadan ayaan ka hadlaynaa insha Allah. Waxayna kaliin eczema ayaa loo yaqaan cudurka loo yaqaano eczema waa sidii cambaarta camal waaye waana cambaar maahan. Cambaarta ayaa lagu qaldaa. Cambaarta waxa waaye tinea ayaa loo yaqaana. Iyo acne finkan loo yaqaano findoobka. Eczema cudurkan loo yaqaan is an inflammatory condition waa xaalad caabuq ah waaye. Iyo acne wuxuu ku dhacayaa in individual shakhsi ayuu ku dhacayaa all ages dhammaan da'do oo dhan. Acne isagana ciladani oo findoobka loo yaqaan involves wuxuu ku lug leeyahay the clogging xirnaanshaha of pores dulduleelada yaryar. Which can lead wuxuuna ku hogaaminayaa to infection waxaa waa caabuq and inflammation isagana caabuqa laakiin caabuqan wuxuu la xiriiraa guduud iyo waxa waaye barar oo guduud ah. Anyo is often seen badanaa waxaa lagu arkaa in adolescence ilmaha qaangaarka ayaa lagu arkayaa. Eczema cudurkan loo yaqaan eczema is an allergic reaction waa falgal xasaasiyadeed wadaad manifesting kaasoo muuqda as dry waa qaleel itch patching waxaa waaye nabar oo cuncun ah of skin ee lagu arkayo maqaarka that resemble rashes iyo isku aruursan oo finan. It may combined waxaa laga yaabaa inay raacaan by swelling of skin waxaa bar maqaar flaking iyo xaaran oo yeesho maqaarka ama waxaa waaye qolfoof ina maqaarka oo yeesho iyo in severe case xaalad daran oo bleeding oo dhiigbax ah. Many who suffers from eczema dad badan oo ka cabanayo ama asiibay cudurkan loo yaqaano eczema waxay leeyihiin antibodies against xawaalid jireed ay leeyihiin oo difaac oo jirka laga helayo jirka bini'aadam qof walban waa laga helayaa antibody. Okay, dusty mites wuxuu lid ku yahay marka shirinta boorkeeda in their bloodis ee laga helaya dhiigeeda laga helaya. But laakiin the link isku xirnaanshaha between u dhaxeeya eczema iyo allergic xasaasiyadda cudurka loo yaqaano eczema dusty mites shirinta boorkeeda has not been proven waxaa waaye lama cadeynin.
symptoms calaamadaha are usually badana managed waa la maamulay with moisturized waa la qoyay corticosteroid creamka loo yaqaano corticosteroid ka loo yaqaano ani immune suppressant waxaa hoos loo dhigay difaaca jirka ana xasaasiyada lagu sheegayo sensitivity-ga dareenka oo jirka ayaa hawaaye sare loo qaadaya oo macnaha oo gaar ahaan antibody-ga oo difaaca jirkaaga dan marka waxyaabo aan macna lahayn ayuu la dagaalamayaa antibody-gaagi sida la awgeed marka difaaca jirka ayaa hoos loo dhigaya marka eczema cudurka loo yaqaan sarcoma skin disorders waa cilada oo caadi ku ah maqaarka dad percent wuxuuna xaadir ku yahay as sida red waa qaab guduud ahaan flake rash waxa way fin oo xaara yeeshay ama waxa cadaan korka yeeshay si figure 3.22 fiiri jaantuska 3.22 jaantuskaas ayaa lagu tusay finankaasi waa kana finanka kor wuxuu ku yeeshay marka xaaro oo cadaan ayuu ka yeeshay oo flake ah acne findoobka acne is an skin disturbance waa arqaladeen oo maqaarka ah that typically nooc ahaan acne wuxuu dhacayaa an areas waxa way aagaga of the skin ee maqaarka that are rich oo qani ku ah in sebaceous glands qanjirka loo yaqaano sebaceous qanjirka saliida face waxaan laga helaa qanjirkan waxaa laga helaa sebaceous glandska face ayaa laga helaa wajiga an iyo baaq qaybta gadaal ayaa laga helaa jirkaaga and it is most common badana wuxuu caadi ku yahay along waxaanu heliya with the onset of the puberty bilaawashada qangaaritaanka diido gacanta to associate waxaan raaca hormonal isbedelka hormoonada but laakiin kan also sidoo kale acres wuxuu dhacayaa in acre wuxuu ku dhacayaa in infant ilmaha yaryarka ayuu ku dhacayaa ani continue waa la sii wadaaya intuu ilaa laga gaarayo adulthood qaangaaritaanka ilaa iyo laga gaarayo hormoonada such as sida androgen hormoonka loo yaqaano androgenka stimulate wuxuu carinayaa the release of the sebum soo deeytaanka saliidan loo yaqaano sebumka ayuu carinayaa an of production soo saartaan xad dhaaf ah ayuu sameynaa an iyo accumulation wuxuu ku aruursamay of sebum saliidan loo yaqaano sebumta alongii waxaana wehelinayaa saliidaasi with keratin midweyahan loo yaqaano keratin kan waxa blocking wuxuu xirayaa high follicles ayuu xirayaa kiishashka timaha ama meesha tinta ka soo bixisay ayuu xirayaa this black furkani ama meesha afka oo yeelanayo fininka is initially white marka koowaad waxa waaye cadaan ay noqonaysaa the sebum saliidana when oxidized markii oo la gubo by exposure to air ayna u furantahay ama ay u qaawan tahay hawada tarnis black waxay isku bedelaysaa madow ay isku bedelaysaa acne findoobka results wuxuu dhalinayaa from the infection caabuq oo by acne causing bacteria oo bakteeriyaasha loo yaqaano ayaa sababa oo bacterial ayaa sababa oo findoobka oo kala ah Probioni bacterium and staphylococcus bacteria labadaas bacteria loo yaqaan Probionio bacterium iyo an staphylococcus loo yaqaan which can lead waxaynu ku hogaaminaysaa to redness meesha ay guduudato and iyo potential scarring iyo waxa waaye nabro oo tamarkeed leh diido wacan tahay to the natural wounds dhaawaca oo dabiiciga ah oo healing process ah habka bogsashada sifiga 3.23 fiir jaantuska 3.23 waa kan okay there other waxa kale jira disorders cilado kale ayaa jiraan include ay kamid yihiin seborrheic dermatitis oo on the scalp waxaan ku dhacaya madaxa ayuu ku dhacayaa cirrhosis cudurkan loo yaqaan cirrhosis cudurkan loo yaqaan iyo cold-sores cudurkan loo yaqaano mina cold-soreskan waxa waaye faruurta ayaa laga helaya meelahaasi waa biyo yaryariis ayaa meesha ku dhacay embetiga cudurka loo yaqaano iyo scabies iyo isnadaamiska habis iyo dheerdheeraha aniyo wartis iyo hanqorta okay
halkan ayaan ku ekeenaynaa jabtarka saddexaad halkan ayaa noogu dhammaaday aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinayaa dhegeysigiina waana mahadsantihiin